Soo dhawaada saaxiibayaal meel walbo adduunka ka joogtaan iyo si walbo aad noo daawanaysaan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta idiin waxa uu ku saabsan yahay Sultaanka Geeska. Sultaan Seyraar ayaa dhowaan waxa uu kusoo wajahan yahay magaalada Muqdisho isagoona rajeynaya ama la filayo inuu ku qabto showgaasi oo noqon doono showgii qarniga. Muuqaalkaas ayaa idinla falanqeyn doonaa, balse intaan muuqaalka guda galin fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro, like saaro videoga si aysan kuu dhaafin muuqaalada kale ee soo socda. Like waa inoo muhiim, fadlan nagu dhiirigeli inaad like noo saarto muuqaalka. Aanu guda galno muuqaalkeena. Sultaan Seyraar oo ciidii ku qabtay show magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa dhowaan haddana ku wajahan Muqdisho iyadoo uu rajeynayo inuu show ku qabto halkaasi. Sultaan Seyraar oo dhowaan muuqaal soo bandhigay ayaa sheegayay in dadyow isku dayeen inay joojiyaan showgii Hargeysa balse ay ku fashilmeen. Waa sida uu yiri. Sultaan Seyraar ayaa inta badan qabtay showyo oo u hirgala badanaa showyada uu qabto, inkastoo Muqdisho hadda ay ka duwan tahay jawiyadii hore ee showyaasha, iyadoo fanaaniin fara badan ay ku fashilmeen showyo ay ku qabteen Muqdisho. Ay ugu dambeysay showyadii hadda ay ku kala qabanayeen magaalada Muqdisho, Sarkeeyow iyo Dayax-Dal Nuurshe, iyadoo loo sababeynayo dhaqaale xumo ka jirta dalka, coronavirus kadib iyo weliba social media oo dhowaan saameyn weyn ku yeeshay dhanka showyada, iyadoo inta badan dadka ay kala socdaan social media waxyaabihii ugu dambeeyay ee heesaha ama muuqaalada ay soo bandhigaan fanaaniinta. Taasi ayaa noqotay in showyadii dadka inta badan aadi jireen aysan aadin oo ay internetka kala socdaan, halkaasina saameyn ayay ku noqotay fanaaniintii showyada ku qabsan jiray magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida degto. Iyadoo taasi jirta ayaa haddana Sultaan Seyraar waxa uu weli rajo weyn ka qabaa inuu show ku qabto magaalada Muqdisho, iyadoo sanad ka horeeyay uu show ku qabtay magaalada Muqdisho ee u kala kacday oo ay dad badan ka qayb galeen. Showgaasi ay wada qabsadeen asiga iyo Xariir Axmed oo ay saaxiibo dhow yihiin. Haddana waxa uu kusoo wajahan yahay Muqdisho, uu rajeynayo inuu show ku qabto. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro, like saaro videoga si aysan kuu dhaafin muuqaalada aan soo gelino. Next video ayay noo balana. Bye bye. Maadis Media. Maadis Media. Maadis Media. Media meel walbo joogaan waxaan le Maadis Media. Sheegaya janaalka Maadis Media waa wada maqasheen, waa janaal kala kacsan aad iyo aad asagana share ayaan ka ahay. Kan ana qaas u hela macna Sharma Boy official waaye. Janaalkan aan u jeedaan Maadis Media abti macaani asigana waa share aan ka ahay. Muuqaaladeeda iyo maxaa la yiraahdaa viewsdeeda iyo barnaamijyadan qabanayo qayb ayay ka yihiin oo waa iga daawan doontaa. Ha lagu soo yaaco sawirkiisana wakaasa mujeedaan kal ilaa lagu soo yaaco. وكلا ماديس ميديا ما شاء الله. أبو على بوحسم سبسكرايب لايك شير كومنت. ماديس ميديا برودكشن. ماديس ميديا وحليها هاي دتكو حرام سبسكرايب أسعارنا لايك شير كومنت. أنت تاجرها مية. ماديس ميديا أجرب. ماديس ميديا ولا ما قاعد في عنا على بحر. walaalay inay ku soo dhawaanaa jecelahay jaajuma meesha ku aragtiinta soo yaaca soo yaaci kartid ma furun kulli illa qalbi furun boqol inaan gaarsiisin aad u jecelahay ka badan helina iniga ka rabna sii garay qof